نبي نوو إن الله دردار موحد لا تقاطعوا هسقويننا ولا تدابروا هسيك لتشيسننا ولا تباغضوا هيسو عروننا ولا تحاسنوا هيسحستنا حين حاسد كيسكايرالية بل وحو نبي يقولي من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه قف مسلم ولا الكيس الصنة دنقوية ديجيسي إنو داديين وكدقية إن السنة بايمك عرقو كلام قالوا أقران إنسان مقاحياك كشة كيسانة ترهدان هبل يهبل الموضح الله دايرتي بيبضن أيها يسقود ما يسني عنك ومحاوك كده أول إنسان ما يسوق كان طاي الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله ولا ليا خطبتنا ما أنت وحي سقط المامينا فضلك عيلاد هاي إن دتك مسلمين تعا يا مؤمنين تعا وحي دحدو ذي الله مشاكل إن يسدوا القاطان إسنا عفيان إسنا سامحان عفسك هي سامحادو والطبيعة هي أخلاق وناكسن وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس وكو أماني قفك الطبيعة هي أخلاق هي دخلك وناكسن لنا شرعه وحي كما قعودي محسن وحوي ما إحسان كنا درجة أسر رئيسة المؤمنين تأي قاران وإمامك واسدح درجة أسر رئيسة وحليها درجة الإحسان إلهنا وحده سبحانه وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء مؤمنين تمركوا كور رباعي وكوا وحبحسنيا حالة عدق هي حالة برواقة الوجه لماذا حالة صدقة هي إنفاق هي وحبحنته وكوا الله إيمانا هي وتلمان وين إن أنا هي تشيلان هي الدراع هي الضير أي سقوم التهاي إن المخت والبا أي وحبحصدان تدك أهل الإيمان كأه كلماتنا وحوي والكاظمين الغيظ وددك عرضه لقيا اسكو حجينيا ان عرضودا كفعل قادن markay عرودان ان فعل قادنين والعافين عن الناس ددك اسك عافيه والله يحب المحسنين كو احسانك يا وناغا سمينايا اي محسنين تا إلهي ضدك النوع عاسو جعله سبحانه وتعالى صوماليدنا waxay tiraahdaa tol wanaagsan ninka wada doona tol la'aan buu mutaa waxa kale oo yiraahdaa tolka waxa loogu taliyaa waa yeelki hebel baa maanta waxa sameeyay yeelkadiisa hebel kala maanta waxa sameeyay yeelkii taasoo kaliya ayaa tolku ku soo doogi karaan oo duruufaha adag ee qalafsan ee keeni karta inay qabaa'ilku isku dhacaan dadku ay isku dhacaan sida qura ee lagaga bixi kara waxa weeye adigoo sameeya inaad indhaha ka laabato qaladaadka hareeraha ka dhacaya ama hadii lagu ciiro ama hadii lagu qardabo hadii lagu joogsado hadii lagu jiirjiiro in aad waayeelkii kaga soo baxdo waxba dhib ma leh waayeeladii markuu isagu sidaa gartay yeelkadiisa taas taqaaful baa la yiraahdaa tasaamuh baa la yiraahdaa soomaad garan imaam ahmed wuxuu yiri at-taqaaful tis'atu a'shar al-khuluq tabiicada wanaagsan toban marka laga dhigo sagaal kamidi waa inaad iska dhigto sidii qof mahsan adoo wax walba la socda haddana aad muraad aanad ka gelinin wax badan oo maanta
ficilkeedu ku eg yahay inaad ka ficil qaadato inaad iska dhaafto ما زال التغافل من شيم المرضيين dadka wanaagsan dhaqankooda inuu yahay tagaafulka iyo iska dhaaf inaad wax iska dhaaftaa oo aanad ka ficil qaadan waa dabeecadii lagu yaqaan dadka wanaagsan ee maqaamka sare gaadhay aayadaas ilaahay wuxuu ku magacaabay dadka muxsiniin ku magacaabay ilaahay wuxuu kala leeyahay subhanahu wa ta'ala وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم مركي عائشة والنبي أوريدي سي أهيد رضي الله تعالى عنها أمنا هو يدين إنك أنا أهيد أمهات المؤمنين أيا فراش النبي أنا أهيد أيا النبي عليه الصلاة والسلام حاسكي سي waxay dooreen kuwii munaafiqiinta ahaa inay ceebeeyaan oo ay ku yiraahdaan gogol dhaaf bay samaysay dadkuna marka warka suuqa la soo geliyo dad markii hore aan ku jirin dadkii warkan sameeyay ee munaafiqiinta ahaa dad aan ahayn oo muuminiina laakiin iimaankoodu daciif yahay ayaa warka qaada dhiga oo laftoodu ka qayb gala وإنك نرانا ضد منافق شدي مؤمن باكو قبتا مركا ضد مؤمنين تكمد أي هذا الكي منافقين تسوق أي سوق قلينا عايشين قبل ناف سميسي يقول عرب كودا سون مريي وقادا دقي مركا رقا وحكمدها من صحابي أو وناكسان ومقعي سلورنجري مستح ابن أثاثة تبدأ تانا صحابي قاس waxaa biilka siin jiray Aisha aabaheed oo khaliifkii muslimiinta Abu Bakr Siddiq ayaa biilka ka bixin jiray inantan wax ka sheegayaan dawaa inantiisi dabatan markii Abu Bakr loo sheegay la yiri kiiskan inantaada lagu caayayo waxa ku jira ninkan aad biilka ka bixisay la yiraahdo mistax go'aan buu ku gaaro wuxuu ka jaray biilkii buu ka jaray إلهي ما آيات قرآن سودتي سبحانه وتعالى أولي هاي ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى تدك إلهي رزق بالله أو حيسته يي كدارن إني تدك فقرة أي بيلي تشرين أي وحسين تشرين إني وحسيان يي كدارن كآيات waxay lagu soo khatimay waliyafu waliyasfahu iska afiyaan waliyasfahu iska dhaafaan ala tuhibbuna an yaghfir Allah lakum meeydaan jeclayn in ilaahay idinkana dambigiina dhaafo Abu Bakr ordaya baa nabiga u yimi oo yiri bala ha wallahi inni uhibbu an yaghfir Allah li wallahi waan jeclay in ilaahay dambi dhaafo mistah جعل هرله أيام أوجله أبو بكر آيات دراديد تبدأ تانا بيل كيبو أسوع عليي وأنا كردية ما أنت مصابين كرنا إنه منك وحكاش هاي إلى بيل كأو كرديسو ويا ضغط مكان نبض الله سكبت دبرت بيل كاتشوجي صماد قرن إنه كتبتي سيلقوا بين جبهي سوقفك iskada waxaynu isnameynay marka dadka u talinaya culimada uqaasha salaadiinta odayada nin garboodka dhabarraweynta qoorweynta ragga reeraha hor fadhiya ee u taliya dhaqankana la doonaya inay ku shaqeeyaan oo nin la balaaran oo hadii qabiilka oo dhan qalbigiisa lagu xereeyo nin qaadi kara weynuu oo dadka midna kilkalada gelinaya qaarna kilkalada kala gelinayo iyaga kala qarinaya saana isugu dhicin oo u kala sheegaya xanta wanaagsan oo oranaya hebel baan ka imiyo hadduu doono hays been fariimo waayo sulx buu wadaa ha yiraahdo hebel baan ka imiyo وريو لك محاتس لك مكو أماني
keeba yamaanay makaan col daahi go'anahay ee caynkana waar balu kaadu kaadi waar baashu xaggaagu bay ka shidan tahay ninkan ana hadda ka imiyo xaggiisa balaayo ma soo jirto kii kalena intaa in lagu ku oranaya labadii nin oo shaydaankii fuushanaa labadaba ka degeen ayuun baa isu imanayeen hadhow ku yarun buu isu keenaya laakiin inaynu dab kusii qabanna maaha nin walowba haanta aada lusho ayuun baad subageeda la baxaysa haddaad haan colaadeed haddaad aada lusho dee laa tajni ashawka min alcinab geedka qodaxda ah macan baad ka guranaysaa macinab baad ka guranaysaa kama guranaysaa wixii aada beertay ayuun baad leedahay dhitadeeda nin saxaabiya oo la odhan jiray cuyaynata bni xisnin ayaa maalin maalmaha ka mid a tusaale labaad baan sheegayahay u soo galay cumar bn khadaab radia allahu tacala canhu cumar wuxuu ahaa markaa madaxweynihii muslimiinta ama khaliifkii muslimiinta dabadeeta markuu u soo galay oo weliba waxa ka wasdeeyey inuu u soo galo nin saxaabiya oo la odhan jiray xur bni qays oo ka mid ahaa golihii shuurada iyo wadatashiga ee cumar bin khadaab mar walba hareera fadhihi jiray oo dadka ahlu qur-aanka ah baana had iyo jeeraale oo cumar bin khadaab la tashan jiray maadaama ay yihiin xamalatlwaxyi dadkii waxyiga iyagu xambaarsanaa markaa ninkaa iska reer miyigana ah ayaa u soo galay dabadeetana markuu u soo galay ismuu lahayn dee ninkan dee u keenay bay ilmaadeer yihiin waa adoo imika madaxweynaha lagu geeyo oo uu ninka kuu geeyay wasiirkaahi aada wasiirku isleeyahay dee ninkanaad madaxweynaha u keentay madaxweynaha ugu qaadqaadi maayo waxba ku odhan maayo oo mar alle markaad madaxweyne hor tagto aada madaxweyne dabada u qabato cay dee wasiirkii meelu dhalaalay war waxaanaan soo kaxaystay waa maxay marka xur ibnu qays ninkan uu soo kaxeeyey cumar bin khadaab buu u keenay dabadeetana cumar bin khadaab markuu u keenay ayuu ku yidhi ninkii cumar loo keenay baa yidhi cumarow wallaahi maa tuctiina aljazl wallaahi wax weyn nama siin wamaa taxkumu baynana bilcadl wallaahi cadaalad dhexdeeda iyo garsoor cadaalada kaama helno oo cadaalad naguma maamushid faqadiba cumar baa cadhooday cumar oo cadaaladiisa la garanayo marka intaa lagu yii uu dhalaalay uu cadhooday xur ibnu qays ninkii ninka keenay ayaa markiiba dhexda hadalkii ka qabsaday intaanu cumar hadlinin wuxuu uhi yaa amiira almu'miniin madaxweyne mu'miniinta kii u talinayow ina allaha tabaaraka wa tacaala qaala linabiyihi sala allah alay wasalam ilaahay nebigiisa wuxuu ku yidhi khudi ilcafwa cafiska qaado waamur bilcurfi wanaagga dadka far wa acrid cani iljaahiliin wax magaratadana ka sii jeeso muraadha ka gelin ilaahay baa nebigiisa ku waaniyey wa ina haada min aljaahiliin ninkaa aan kuu keenay qoladaa jaahiliinta la yidhi iska dhaaf arrinkooda ayuu ka mid yahay jaahil weeye ninkaas fawallaahi maa jaawazaha cumarun wallaahi cumar inaanu bartii dhaafin xiina talaaha calayhi markii aayaddii lagu dul akhriyey wa kaana waqaafan cinda kitaab illaah marka kitaabka ilaahay aayad ka mida la akhriyana wuu istaagi jiray cumar ma dhaafi jirin qur-aanka yacni ninka imika cadhaysane boqol aayadood haddaad ku akhrido bal qur-aanka ii jooji buu odhanaya horta ninkan aan iska celiyey haye dee soomaalida ma tiraahda wuxuu ku odhanayaa wacdi iyo dee ma garanaysaaye aan dee dagaal adeer meel ma wada galaane horta marka hore aan ninkii wax iska celiyey bal wacdiga ii yarkaadi buu ku odhanaya waa qalad waa inaad wacdiga marka lagu wacdiyo waa inaad istaagtaa oo weliba hadalka ilaah lagugu wacdiyo oo hadalka nebiga lagugu wacdiyo calayhi salaatu wassalaam macaashira almu'miniin cafiska iyo saamaxaadda ayaynu isku jeclaanaynaa muslimiintuna isugu soo hiloobayaan walaalo ku noqonayaan albaabkii tafaraaruqa iyo kala taganaantana albaabkana waynu xidhaynaa nebigana wuu inala dardaarmo wuxuu uhi laa taqaatacu haisgoynina
walaa tadaabaruu ha sii kala jeesanina walaa tabaaqadu ha isu cadhoonnina walaa taxaasaduu ha isxasdina xin iyo xaasidka iska ilaaliya wakunuu cibaad allah ay yaa cibaad allah addoomihii ilaahay oo waxaad noqotaan ikhwaanan walaala noqda walaa yaxilu limuslimin qof muslima uma bannaana an yahjura akhaahu fowqa halaain inuu qof kale oo walaalkiisa muslimka ah 3 maalmood wax ka badan inuu wejiga ka dadbo oo uu gooyo uma xalaalaha bal wuxuu nabigu yidhi man hajara akhaahu sanatan fahuwa ka safki dami qofka qof muslima walaalkiisa sanad dhan gooya dhiiggiisii inuu daadiyey buu ka dhigaya imise nin baa iminka cadho ku kala maqan oo aad garanaysaan ood maqaaxiyaa kaga sheekaysanaad tidhaahdaan hebel iyo hebel ma wada hadlaan dayrtii biyo badan ayaa isugu dambaysay nimanka ah oo maxaa kaga daawanaysaan ma isu keentaan ma axaadiista ku dul akhridaan ma culimmada u timaada tira sheekh labadaa nin ha la wacdiyo waxa loo sheego maxaa yeelay dee arrinkoodu xaafaddiina waa wada yaalliin maqaaxiyo way isugu imanayaan golana soo wada fadhiisan maayaan mana wada hadlayaan carruurtiina way ku beereen xumaantii oo labada qof ee waalidiinta ah markay isqabtaan haddii hore loo gaari waayo arrinkooda la dhabayn waayo waxa dhacda in arrinkaasi uu hoos u dhaadhaco ilaa dumarka ilaa carruurta ilaa qabiilka ilaa deriska wax kale iska daayeen wax kastoo kicin kara in aynu kala cadhoonno ama aynu isku khaldanno shareecadu albaabka way xidhay laa yabiic bacdukum calaa bayci bacdin nin wixii uu gorgorinaayo ee iibsanayo nin kale yuu ka dul gorgorinin oo ka dul iibsanin oo markaad tidhaahdo waar waa imisaa maaragtay gaadhigan waa imisaa idinkoo ninkii dee iibkii isjiidjiidaya oo dee maaragtay gorgortamaya hadduu mid yidhaahdo war muxuu kugu yimi har iska daaka waxbaa ha ka iibin annaa kaa iibsanayni waa dembi weyn dee labadaa qof miyaad isku dirin kii hore ilaa uu iibka ka baxo ka kale yuu soo gelin baa la yidhi bal iska daayay inuu soo galay yuu gorgorin baba la yidhiba gacantaba yuu soo taagin walaa yakhtub axadukum calaa khidbati akhiih nin hadduu u dadab galo gabadh oo uu doonayo gabadhaas u doonan tahay oo uu doonayo gabadhaa inuu guursado oo reerkooda uu la hadlay laakiin weli aan loo meherin yuu ka duldhicin oo odhanin gabadha anaa doonaya inaad dab shidata maa tiradood war inantii wallahi dab kalena waa la shito inantii qolo kalena waa doonaysa mamnuuc waa in la iska ilaaliya waxaa la dhowrayaa dadka muslimiinta walaalnimadooda la dhowraya iyo xigtanimadooda iyo qaraabanimadooda iyo xigaalnimadooda iyo xididtinimadooda iyo islaamnimadooda ayaa la dhowrayaa marka nasal allah tabaaraka watacaala an yualifa cala alkhayri quluubana waan yuslixa daata baynina waan yahdiyana bihadyi kitaabihi wa sunnati nabiyi sala allah alayh wasalam ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين وأقم الصلاة